saxaabadiisa qaar ka mid uu nabigu ku arkay suuqa ayagoo meel fadhiya fii wasdi suuq markaa buu nabigu iskor taago wuxuu ku yidhi maxaad hadal haysaan waxay dhahdeen natadaakaru can isaaca saacadda qiyaamadan hadal haynay cajiib suuqa magaalada madiina saacadda qiyaamada lagu hadal hayaa zamankeennan maanta masaajidda dhexdoodana siyaasad iyo qabyaalada lagu dhex hadal hayaa isbedelku intuu leegyahay baleeg suuqii madiina saacadda qiyaamada ayay saxaabadu ku dhex hadal hayeen aakhiraday ku dhex hadal hayeen qur-aankay ku dhex baranayeen aayadda nebiga ku soo degtay bay ku dhex baranayeen masaajidaynana inaguna maanta waxaan ku hadal haynaa qabyaalada iyo siyaasad inteen fogaanay markaa buu nabigu ku yidhi sal allahu alay wasalam inaha lan taquuma saacatu xataa tarow qablaha 10 aayaat hadal macnihiisu ahaa saacadda qiyaamadu dhici mayso oo imanba maysa buu nabigu yihi 10 calaamadood baa ka soo horeysa buu rasuulku yidhi 10 calaamadood oo 10kaasiba waa fitanta waaweyn weeyaan fadakara dukhaan buu nabigu sheegay qiiq samada ka imanaya fadakara dukhaan والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف خصف في المشرق وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب وآخر ذلك أبو النبي يقول نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 calaamadood buu nabigu yidhi ayaa ka soo horeysa saacadda qiyaamada waxauna ka bilaabay qiiq baa iman doona buu nabigu yidhi qiiq imaam an-nawawi rahimahullah fi sharh muslim wuxuu ku sheegay uu qabto uu sharxo wuxuu yidhi waa qiiq samada ka imanaya gaaladana neefta ayuu ku dhajinayaayo uu leynayaa muslimkana hargab buu ku noqonayaa buu yidhi muslimka muxuu ku noqonayaa hargab in sheekh culimada kamid ahaa wuxuu yidhi xanuunkan maanta adduunyada ku fiday baan anu odhan lahaa buu yidhi dukhaankaas inuu isaga yahay xaqiiqadan ilaahay baa garan waa kanoo xanuunkiina tegi waayo waxaa lagu leeyahay kolba mawjad cusub buu bilaabayaa bay ku leeyihiin laa ilaaha ila allah dajaal buu nabigu sheegay inuu imanayo dajaal fitnadiisiina waa ta imika bilaabantay oo dajaal fitnadiisa waxaa kamid uu la imanaya waa maxay naar iyo janno wax weeg buu la imanayaa daruurta ayuu maaragtaane amar ku siinayaa deedna biyahay keenaysaa maalmaha dhaweytana social mediaga inaad ka maqasheen baan u malaynaya imaaraadku waxay jarrabeen diyaarado daroonis intay kiciyeen bay qalab casri oo maraykanku u sameeyey kambaniya maraykan iyo ingiriis oo balaayin lacaga kaga qaatay waxay u sameeyeen onkod qalab onkodka oo kale lamid onkod ka tiraadaan mise maxaad tiraadaan hanqad guga onkod barq daruuraha ku dhifanaya qamaam deedna markaasuu roobku sii daynaya markaasay idhahdeen magaaladii dubay 50 digri kuleylka oo maraya ayaa aaladda u isticmaaleen bay idhahdeen daruurihii deedna roob baa daay bay ku leeyihiin fitnadii dajaal mayn ahayn heer waxaa marka dambe la socdaa waddan aliya waddanka roob u baahan ba in yidhahda annaga roobka na siiya hana siinana caabuda hadii fitna dajaal banu nabigu sheegay fitnadiisa ka horeynaysa dajaal daabad dhulka ka soo baxayso dadkoo dhan calaamad ku dhifanaysa kaafirka kaafir bay ku calaamadayn muuminkana muumin bay ku calaamadayn waa labada magac ee dadku yeelan doonaan buu nabigu yidhi magac kale oo ma soconayaba muumin iyo kaafir un baa la isugu yeedhi mana inkiri karaya qof laana calaamadii baa halka kaga taalla muuminkii ama kaafirkii baa ku qoran marka calaamaatul kubraa buu nabigu sheegay intaasoo calaamadood saxaabada rasuulku waxaan ka wadaa ayakoo halkaa jooga oo zamankaa joogay cabsoonayeen oo fitnada ayay ka baqayeen soo socota waliba axaadiista qaar waxay sheegaysaa markuu nebigu dajaal uu kala hadlaayo dareenka aan ka qaadanayna dajaal imaadkiisa waxaan u malaynayna yidhahdeen kaynta dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiro ka soo baxayaan u malaynayna yidhahdeen waa fitnad waxaasoo dhan fitan socoto weeyaan
marka muuminka ilaahay qalbigiisa iimaanka uu dhigay fitanta isagu ku mashquuli maayo isagoo amarka ilaahay buu ku mashquulayaa sidii nebi ibraahim calayhi salaam qisaska nebiyadoo dhan qur-aanka ka akhriso qisasu nebiyiin oo dhan baa qur-aanka lagugu sheegay nebi walba imtixaan gaara ayaa la imtixaamo gooniya ah qaar faqri baa lagu imtixaamay qaar cabsi baa lagu imtixaamay qaar boqor baa lagu imtixaamay qaar atibaa iyo dhakhtarraa lagu imtixaamay qaar qabaa'il baa lagu imtixaamay qaar maalqabeennaa lagu imtixaamay qaar ubadkiisi iyo reerkiisii baa lagu ikhtibaaray qaar caafimaadkaa lagu ikhtibaaray laakiin meesha iyaku ay ku baqanayaan way yaqaanaan nebiyadu waa meeshee rujuuc ila allah ilaahay ba xaggiisa usoo noqonayeen ibraahim dab baa lagu tuuray xasbiya allah wa nicma alwakiil yuunus calayhi salaam bad baa lagu tuuray an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin muxamed calayhi salatu wasalaam god baa la geliyey laa taxzan ina allaha macana muuse calayhi salaam baddaa ka hor timiday kalaa ina maciya rabbii sayahdiin ayuub 18 sano xanuunsanaa rabbi inii masani yaduru wa anta arxamu araaximiin zakariya 100 sano bilaa ubad ahaa rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarihiin meeshay u noqonayaan bay ku yaqaaneen ilaa ayna tarjac dib hadday kula soo daristo oo daartan waa daar alikhtibaar ikhtibaar kugu dhaco xaggeed u ordaysaa markaa lidaalika nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu baray mashaakilka adduunyada la soo darsa dadka bini aadanka xalka keliya meesha uu yaallo ayuu nebigu saxaabadiisa uu baray oo ilaahay oo loo soo noqdo weeyaan xalku meel kale ma yaallo wuxuu yaallaa xalku ilaahay u soo noqda bas soo noqoshada bini aadamku ilaahay u soo noqonayaana dhaqaale kaagama baxayo ogow inaad toobad keento dhaqaale kaagama baxno inaad tukato dhaqaale kaagama baxno inaad ilaahay baridaa dhaqaale kaagama baxno inaad soontaa dhaqaale kaagama baxno inaad qur-aanka akhristaa dhaqaale kaagama baxno inaad istikfaar la timaada dhaqaale kaagama baxno inaad salliga nebiga badisaa dhaqaale kaagama baxno inaad masjidka iska dhex fadhiistaa dhaqaale kaagama baxno kaagama baxno cibaadada iyo taacadda ilaahay laba aaladood bay bini aadamku ilaahay taacaddiisa ku gudan karaan laba aaladood labadii aaladoodna ilaahay bini aadamka frii buu uga dhigay aaladda koobaad waa qalbiga waa meesha ikhlaasku galo weeyaan aaladda labaadna waa jidhka waa meesha cilmigu ka soo baxo weeyaan aaladda koobaad waa tee waa qalbiga laa ilaaha ila allah qalbigay degaysaa muxamedun rasuulullah sal alla alay wasalamna jidhkeennay ka soo fulaysaa laa ilaaha ila allah waa ikhlaas muxamedun rasuulullahna waa cilmi laa ilaaha ila allah waa ruuxdii muxamedun rasuulullahna waa kaljasad weeyaan marka labadaasina waa frii qof walba hal qalbi buu leeyahay xubnahana ilaahay bini aadamka si cadaaladdu ilaahay ugu qaybiyo nin walba uu siiyey marka taacadda ilaahay waxaa lagu gudanayaa dhaqaale maaha waa xubnahan haddaan imika qur-aan raba inaan akhristo maxaan isticmaalayaa carabka waa bilaash haddaan raba maaragtaana inaan dikri sameeyo waxaan isticmaalaya waa carabka waa bilaash haddaan raba masjidka inaan imaado waxaan isticmaalaya waa lugahayga waa bilaash haddaan raba inaan soomo waxaan isticmaalaya waa jirkayga waa bilaash haddaan raba inaan ducaysto ilaahay baryo waxaan isticmaalaya waa gamcahayga iyo carabkayga waa bilaash bilaa lacag baa lagugu siiyey haddaan raba iimaankayga inaan ziyaadsadana meesha iimaanku gala waa qalbiga waa bilaash qalbigii bilaash bilaa lacag baa lagugu siiyey qalbiga waa xubinta jidhka bini aadamka ugu muhiimsan ugu qalbiguna waa xubinta nabigeennu uu yidhi jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday taasi hagaagtana jidhkao dhan baa hagaagi hadday taasi xumaatana jidhkao dhan baa xumaani baa nebigu yihi taasina waa qalbiga buu rasuulku yihi qalbiga marka nicmadaasi way dhammaataa araggu waa nicmad uu dhammaan maqalku waa nicmad uu dhammaan hadalku waa nicmad uu dhammaan socodku waa nicmad uu dhammaan cimrigu waa nicmad uu dhammaan qofku 80 jir markuu gaadho araggiisu uu gaaban saas waa kuma buu ka odhan 80 jir hadduu gaadho hadalka kor igu qaad buu ka odhan ma maqlee war kor maxaa tidhi buu ka odhan leanna way dhammaatay nicmaddii way sii yaraanaysaa
sideetan sano dhan buu isticmaalayay maqalka, sideetan sano aragga isticmaalayay, sideetan sano hadalka isticmaalayay, sideetan sano socodka isticmaalayay, sideetan sano maaragtaan gacmihiisa isticmaalayay, sideetan sano nicmadaas oo dhan isticmaalayay, lacagna kama bixina bilaash baa ilaahay ku siiyey majaanan. marka nicmadda ayay intayna naga yaraan bay iyo culimmadu leeyihiin ilaahay daacaddiisa qofku ha u isticmaalo oo dhibaatadan adduunyada kula soo darsaysana wixii dhibee kula soo darsana maaragtaana ku sabir, wixii barwaaqe ilaahay ku siiyana ku shukri. ibn qayim aljawsi raxmatullahi caleyh ayaa yidhi laba faras baa la fuulaa ilaahay marka loo dhowaanayo, farasna magaciisa asabri baa la yidhaha adkaysi, faraska labaadna magaciisa waa ashukru weeyaan. balaayaa kula soo daristay, sabirka qaado oo ilaahay ugu dhowow sabirkaaga. barwaaqaa kula soo daristay, shukriga qaado oo shukriga ilaahay ugu dhowow. inahu kaana cabdan shakuura, addoon shaakira. afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura, saasuu nabigeenu lah sal slam. miyaanan jeclayn inaan ahaada buu nebigu yihi addoon shaakira. nebi nuux baa lagu ammaanay inuu ahaa addoon shukri badan oo mahadnaq badan. marka nicmadan aan haysana ilaahayna siiyey walaalayaal ilaahay aan ku garanno, yaana ilaahay ku caasin. mar bay gabaabsi noqon doontaa, marna kulliya nicmadaasi way istaagi doontaa. inta gabaabsi ayna noqonna ilaahay daacaddiisa naftaada ku barbaari, inta nicmadaasi lagaala noqonaya lagaa qaadanna ilaahay daacaddiisa ku dadaal. raggii wan wanaagsana sulaxaa walatqiyaa, in allaha yuxibu alatqiyaa alakhfiyaa aladiina idaa gaabuu lam yuftaqaduu waidaa xadaruu lam yucrafuu ulaa'ika a'immatu lhudaa wamasaabiixu lcilm. in allaha ilaahay koreeye wuxuu jecel yahay, yuxibu ilaahay waxa uu jecel yahay alatqiyaa kuwa alla ka cabsiga leh, ilaahay bay ka baqaan. hadday maskiid joogaan ilaahay bay ka baqaan, hadday meherada joogaan ilaahay bay ka baqaan, hadday aqaladooda joogaan ilaahay bay ka baqaan. fi siri walcalaaniya ilaahay bay kaga baqaan, fi safari walxadar ilaahay bay kaga baqaan, fi sigari walkibr ilaahay bay kaga baqaan, fi lfaqri walghina ilaahay bay kaga baqaan, fi shidati walrakhaa ilaahay bay ka baqaan. alakhfiyaa buu nebigu waa kuwa qarsoon, lama yaqaano. shuhradda ninka muslimka uma fiicno ogow. aladiina idaa xadaruu lam yucrafuu, hadday soo xaadiraanna majmaca lama yaqaano. waidaa qaabuu lam yuftaqaduu, hadday maqnaadaanna lama tabo. ulaa'ika a'immatu lhudaa, kuwaas waa a'immadii ummaddu ay ku daba hanuunaysay, waana masaabixdii, waana iftiinkii cilmiga buu rasuulku yidhi. noloshoodao dhan waxay ku dhammaysteen ilaahay daacaddiisa. qalbigooga adduunye kuma jirto, qalbigooga aakhirada ku weyn. cibaadaday cibaadaysanayaan adduun kuma doonaan, aakhiray ku doonaan ilaahay ku raali geliyaan bas. sulaymaan bin cabdilmalik axad malik min muluk dowlat alamawiya buu ahaa. xaramkuu soo galay. xaramka markaa waxaa ku ictikaafsanaa saalim bin cabdillahi bin cumar radia allahu canhum, caalim jaliila oo taqiyo ilaahay cilaaqalo leh. boqorkii baa u yimiday, su-aaluu weydiiyey, uu uga jawaabay. nasiixuu ka dalbay, uu nasteexeeyey. markaasuu boqorkiibaa sheekhiibuu ku yihi ii sheega waxaad u baahan tahay, xaajadaada maanta ii sheego waan kuu dabooliye. markaasuu yihi halkeen joogaa buu de aqalka ilaahay baad joogtaa, kacbaday ku jiraan, xajar baytullahi alxaram bay dhex fadhiyaan labadooduba. markaasuu yihi maanoo aqalka ilaahay dhex fadhiya ayaan ilaahay kheyrkii weydiistaa buu ku yidhi. subxaan allah, waa boqor ma ahan madaxweyne, waa malik addunya, adduunka o dhan buu xukumaya dowladda islaamka o dhan. ballanna ma qaadaan baa la yidhi, jeegna ma qorayn dadkaasi boqoradu. kiishash dhan oo dahaba lala daba soconayay, qofka ay daaq siinayaan way cantoobayeen, way siinayeen.
وحو جوابه كويدي ما أنه أقل كإلهي نح جوغا أيان إلهي غير كي ويديستابو كويدي بقر كي ويا دي بدو أبح بقر كي بانكو بنانك يستاقب حرس كي عيدك الله سعودي بكويدي شيخا وأن إلهي كحرا حق بو إن نقول يا هاي وانو أذيقنا وانو خدميننا وحبانو قبنينا إلهي بان نقول دوانينا هل كا بنانك يا كسو هل كا يفريسي بودي عاو مركو سيهو يا هاي صومره هل كي بو كسو مركا شيخي أرضي دي سي والله سعوتا أوي بدي بالي بقركي يا ماشي كو تاغن مركاسو سو دوادي ما wax su'aalo kala ku hadhay markaasuu ha su'aashay hadhay waxa weeyaan aqalki ilaahay oo adiga ka soo dhaxbaxee baahidaada ii sheeg waxaan ku daboolay markaasuu ma adduunye mise aakhiro markaasuu aakhiro aanu ma hayo buudi laakiin adduun maanta waan hayaa buudi adduunyada miyaa buudi ha ilaahay abuuray baan inaan weydiistaa ka xishoodaa buudi iska dawaab adiga adduunyada ilaahay abuurtay ayaan inaan weydiista ka xishoodaa buudi inakana ducadeena maanta maxaa u badan boqolkii 90 markaan ducaysanayno haddaan ducaysanaba weeyaan haddaan ducaysanaba waxaad u moodaa ducadeenu inay adduunyo u badan tahay maanta dad badan baan imika la kulanno khayr bay nagu tuhmayaanoo dad awliye noo haystaan laakiin walba isagaa soo wuxuu yahay haddana dadkii noo duceeyeen nalahaaya khayrka nagu tuhmayay mid cadaab alqabr ilaahay inuu iga badbaadiyo سوء الخاتمة إلهين ويجي إلى ليو خاتمة إيه هجاجي يقول دعيري ما مغل قفل بوح ولا يلمه بس نجا ما جورسنا قبر ونكسم مرة وبد ولي ما هيو ركب بنان كديبة يجي جرائنا يصون قضاء مرة أنا جينا الشقة ما هيو قرنوا بكتان يحنون بشيء يعني وارون إلا سكود دعيو لكن وح كوضع قفك وح قلبك سكوين أي عرف كيسنا كصوب على مركض وعيزانيو سالم نوح وكير بقركي أدو يد مياه أدو يد إلهي أبورتينا ويديستاك حشود أبو يدي هنا ويديسنا أدو يد إلهي لكن وكحشونيين حشود لأنه أرزاق قد إلهي بينو قري نبي قال نبا ويمدو يد إلهي مركان بريا يمحان كدو عيستا إيشيك حديث كاس هو صحيح البخاري بكويا النبي يقول حكويري قل وحات هذا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني إله ودم بقي قداف وإن حريص وإهنوني وإهدي إلى أرزاقنا الدنيا النبي يقول دم بيسي عليه الصلاة والسلام لأن نلشين الدنيا معيشة دوها عريري قلينا يا متقانا ومعاصدة ساسو النبي يقول دعاء وبري صحابة ديس لكن إلهي كوحدنا أنا هاي وحيلا هايين الدنيا إلهي أبو ربنا ويدسنا كحشون نابا اسكت دعوة دقيقة لأن قلبي قوة إخلاص كاقل إخلاص لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وكلا إله فاعلم برو حاد برنيسا لا إله إلا الله برو إلهي هرتا برشد إلهي ما هريسا كل كاد إلهي أدبرتا بريدي ساكون بيران كل كاد إلهي برتا ضاعدي ساكون بيران كل كاد إلهي برتد cabsidiisa ku dhib yaraan kolkaad ilaahay baratid waxa uu ka reebay inaad ka reebtoona taa ay ku fududaan saalixiinta kamida ayuu nin ku yiri ya sheekh ilaahay waan baryaynaa laakiin baryadii ducadii lama aqbalay maxay ku dhacday buu ku yiri wuxuu li'annakum tad'uuna man la ta'rifunahu ka aad baryaysaan wali ma barane horta ilaahay soo barta buu ku yiri baro ilaahay fa'lam علمك هرية علمك الله برانيا علم الإخلاص كالله برانيا علم الإيمان كالله برانيا علم اليقين بالله برانيا فاعلم وحابرة أذقاتا أنه لا إله إلا الله إلى حق لقوا عبدا كون كان مجرو حدو جرنا والله رب العالمين كلقي ويان واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
adiguna ilaahay dambi dhaaf weydiisa baa nabiga lagu yiri adigii anigana laynagu leeyahay muuminiintana ilaahay dambi dhaaf u weydii wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum waagu markuu bariyo inta meeloodeed ka soo noqonayso meeshaad marayso meeshaad fadhiisanayso meeshaad ku dambaynayso meeshaad u socoto waxaad doonayso iyo meeshaad barida saarayseed fadhiisan doonto ka oogee la socdo waa ilaahay caza wajalla qur'aanka ku baraya tawxiidka qalbigu haday xaqiiqatu tawxiid xaqiiqatu iimaan qalbiga haduu galo jirkan inuu ilaahay adeeca marka uu dhib yaraan qalbiga haddii ay macrifada ilaahay aynan gaarin halkii la doonayay taacadu way kugu adkaan macaasida inaad kar joogsataan way kugu adkaan gaariga frame-ka qabta Soomaa hadduu bilaa frame noqdo ka warama la yazni الزاني حين يزني وهو مؤمن qofku ma zinaysta buu nabigu yiri xilliga uu zinaysan isagoo iimaan qaba qofku wax ma xada buu nabigu yiri xilliga uu xadaayo isagoo iimaan qaba waa laga siibay iimaanka qofka ibn Abbas ilaahay qofku doonana iimaanka uu ku celiyo qalbigiisa ku doonana ilaahay waa ka qaada iimaanka ilaahay waa naga qaadin macaasida waxa ka qabanaya waa iimaan haddii iimaanku limidkii la doonaya hadduunan gaadhsiisanayn salaada inaad ka tagtaa way ku fududaan macaasi inaad ku dhacdaana markaa way ku dhib yaraan limaada laana frame-kaaga halkii la doonaya ma gaadhin weli kaa qaban lahaa macsida ibraahim al-adham allah u naxariistee ayaa nin dhallinyaro u yimid oo ku yidhi yaa sheekh ibraahim nin dhallinyaraan ahay oo shahawaadkaygii baa igu kacsan buu yidhi macsiyana ma dayn karaya maxaan sameeyaa bal ii sheeg sheekhow markaa buu sheekhu yaabay inna lilaahi war maxaa tidhi cisyaan ma dayn karayo anuu macsiyo ku jiro baan isarkaya sheekhu wuxuu ku yidhi ma garanaya waxaad samaysay orod iga teg kolkuu kii yaraa sii jeestay buu u yeedhay wuxuu yidhi ma waxaad leedahay macsiyo ma dayn karaya haa ee qiil ii raadiya haa de maxaan sameeyaa wuxuu yidhi bal waa hagaaga caasi ilaahayo markaad ilaahay aad caasinaysid dhulkan aad ku joogto isagaa samaystee dhulka uga kaco dhulkan dhul aan ahayn doondoono oo samayso ilaahay ku soo caasi buu ka yidhi ma jira ma dhici karta buu yidhi dhulku waa dhulkan ma jiro dhulkana ilaahay baa iska leh siday ku dhacday buu yidhi markaa ilaahay dhulkan lahaa adoo dhulkiisii kor saaran inaad dhulka dusheeda ilaahay ku caasido siday ku dhacday buu yidhi haddaba mid labaad baan kuugu dari arsaaqada aad cunaysa iyo biyahaad cabbayso ilaahay baa iskale soo ma ahayn caasi ilaahay oo caasiyo amarkiisa diid oo amar diidda ilaahay ku samee laakiin baadkiisa iyo biyihiisa u daa buu yidhi ha ka taabanine ma jiraa haddayn karaysid biyaha kama maarmi karaysid baad kama maarmi karaysid ilaahay dulqaad badana waa hagaag buu yidhi haddana tu saddexaad baan kuugu dari meel uusan ilaahay ku arkayn raadso oo meeshaa intood gashid halkaa ilaahay ku soo caasi ma jirtaa tu saddexaad tu afraadna waan kuugu dari maalinta malakulmoodku ku soo doone ruuxda lagaa qabanayo iska diida waxaad tidhahdaa cisyaan baan intaa ku soo gaadhe waan toobad keenaya 50 sano dambe ha laygu daro ma jirtaa ma jirto yarkii yaraa uu yaabay meel uu ka baxo waayey laana culamadu de hami ummadeed baa ku jira iyagoo usluubu dacwo bay yaqaaneen yuuti alxikmata man yashaa waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira xikmaddaana nebi maxamed bay ka barteen calayhi salaatu wasalaam laana nebigeenna xakiim aha calayhi salaatu wasalaam saajidkii isagoo nebigu jooga nin dhallinyaraa nebiga u yimid oo gacanta taagay su-aasha weydiinayaa la dhegta loo taagay yarkii su-aal cajiib uu soo saaro wuxuu yidhi yaa rasuul allah anu zine ma dayn kariya zinada ha lay ogolaada buu yidhi saxaabadu way yaabeen saasay u eegeen maxaa tidhi markaa buu nebigu yidhi daaya soo dhowow walaal ma kula dhasheen gabdho walaala ahaa way la dhasheen habaryar ma leedahay haa eedo ma leedahay haa caynkaa ma leedahay haa raalli ma ka tahay kuwa aad qaraabada tihiin ee ehelkaaga in waxaa loola tago
oo nin meesha jooga waxa ku sameeyo ma dhimashan ka aqaana buu yiri wuxuu yiri zina ii fasax baad igu tiri haddaan zinada ku fasaxaba ka soo qaad gabadha aad zinada ula tagaysid ragga halka fadhiyo unbay ama walaashii tahay oo walaal ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay ama eedda ugu toosan tahay ama inantiisii ay tahay uu dhalo aabbo ugu toosan yahay sida adiguba kuwaaga aad waxa raali aad uga laahayn ayakuna kuwooda raali kala ma abu ku yiri marka buu yaa rasuul ilaahay dambi dhaafi weydii marka buu nabigu soo dhawow ka yiri laabta halka buu nabigu gacanta u saaray wuxuu yiri ilaahu farjigiisana fuxshiga ilaahu ka dhowr dambigiisana ilaahu ka dhaaf qalbigiisana xumaanta ilaahu ka saar buu yiri bal firs طبيب الأمة معلن لمده أدوك ما سومر من سومر دونه وقال محمد عليه الصلاة والسلام معلن عجيب أبوها يركي روحيني مالين تبا يقدم بيسي حمان أكو هميوها مالين تنبي يقول لابته وقعنت إيسارا يقدم بيسي بيولي مساجد قد أحد سنين عربية عورتي ستون الله صوبع يكون كاذيي صحابة يكون يعين كجوج أبو نبي يقول هل بكون كاد سنة بيه كبدن قاضي كشبا سجين يقول يقول كاد إذا هكو كلا جوينين أبو نبي يقول دعوه فرحة كقاضي يقول هل بكون كاد سنة بيه كبدن كشبا سجين أبو يري لماذا بنيت المساجد مساجد وحي الله دسي النبي يقول شيء نكي حولي والله معلن لمده هرو ما أركن دب دمر وما أركن يقول يمد بسن يمع عاين وحنا يقول مدفن إله أني محمد نون حريص عدك لنا هنولنا حريصا بيولي بركاب النبي يقول رحمة إلهي واسعة هاي أيا اللي بدنا كسو كوبته كدر أصحاب تيدنا أبو النبي يقول ادعي دعاء كدر إياكنا marka usluub dadka loo islaaxinayo ee ummadda toobada iyo ilaahay xaqiisa loogu xidhaayo waxay ka qaateen darsiga Muhammad alayhi salatu wasalaam rasuulkeennii bay ka qaateen alayhi salatu wasalaam Umar al-Faruq radiyallahu anhu ayaa waxa jiray nin rasaa'isha risaaladaha uga keenay maaragtaan ardu Sham Umar ninkii buu waayay booskiisi nin kala yimiday markaas Umar ku yiri war ninkii hebel aha ee risaaladaha ay keenay jireen xiriirin jiray me ya amir al-mu'minin ninkii waxa la u simbiri raxda lagu yiri diintii uu ka noqday sharib al-khamr buu noqday dhulku ku dhacay markaas Umar kacay oo fariistay markay ragii noqonayeen buu la dardaarmo wuxuu ku yiri horta ninka waad u tageysaan oo salaam baad iga gaarsiineysaan warqadna waa nigu dhiibi risaalada u geeyay buu yiri intaanad u tagina du'a bilaahay bariyo buu qalbigiisa ilaahay uu soo jeediyo fi surati ghafir ayu ku sheegay ibn kathir rahimahullah awail keega suuradaha ugu horeeyay sharxiga ayu ku sheegay aayadan markaa Umar u qoray xaamim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر الذنب وقابل التوب ذنبك يا دف توبتنا يا أقبل ورقد بك قادن عمر سيد عمر كودر دار ما بيسميين markay buuqanayeen ziyaareynayeen way duceeyeen midda duceeyo intoodina aamin bay yiraahdeen ninkii bay halkiisii ugu tageen ay ku yiraahdeen Madiinada al-Munawwara ka socona Umar baan ka socona xaqiisa haye una ka weydiiyay ma Umar baa aniga ay tabay uu ku tabay Umar haye warqadana uu ka soo dhiibay salaana waan kaaga sidnaa warqadan akhriso warqadii buu kala furay غافر الذنب وقابل التوب
غافر الذنب وقابل التوب للمين يا لماذا كسعتها للما كدادنا يسنكي وصو إسلامي إسلامي ما دي سوي حقاقت أما أو توبت كانوا توبت دي سوي حقاقت بريد بين جماعة عمر كسر نقطي عمر وحكى لما ويدينا وحيري نكيب اللي يجا ورا ما بخيري وعلى يا أمير المؤمنين سيدي آت سمايا نقول تريبا سمايني ورقدي وانو قادني سلام بانو جيني انت انو تجينا وان دعاء سني له قلبك سيلعي سو جيديو يا امير المؤمنين نبشرك نكي وصار نقض الهي بوصار نقض وتوبت كاني مركز عمر كويل صحابه مركز ارتان من مسلمه او سنبرير حدي او الهي طاعتي سي عبادتي كدعي مركز اركتان ارسدا اولا دغما بكوري سدا اولا دغما انك انا درينك الله ينسي ها dad badan oo maanta muslimiin iska dayacan laakiin cid u damqata markay waayeen cid toobada ugu yeedha markay waayeen cid masaajida ugu yeedha markay waayeen cid u oyda habeenkii markay waayeen cid u naxariisata markay waayeen ayakana qaarkood way qoosteen bashar al-hafi bashar bin al-harith al-hafi nikal oo jiray min aimati salaf buu harag ummadan hogaamiyaashii wuxuu ahaa lagu dayanayay buu ka mid noqday markii dambe saalixiinta aqalkiisa waxa lagu ciyaari jiray baa la yidhi dafka iyo maaragtaane rakhaska lagu ciyaari jiray oo rag iyo dumarka isku dhex ikhtilaadi jiray nin maalqabeena ayuu ahaa habeen habeenada ka mid ah nin garcad oo cimaamadana u duubanta albaabka aqalkiisa soo taagay ninkii bawaabka ahaa ee albaabka u joogay buu ku yidhi ninka aqalkan iska leh ma addoon baa mise waa sayid ma nin xoraba سوى نين أضونا برجع أضوما جرجر ولا يمسجر أضومها ما وقته مركا أبو كوري سقوا حوقات مركا إنه لا يعني كانوا وانين عين كاسو أضونا أو ما يعني مركا ما هو حر مركا هو حر ما ها أضونا هو حر سندوش سرو كاركا يعني ها محربة ها وواحد أقل كيس سيدا الله يقول عيارة الآن سببت أقل كيس الله يقول عيارة وحر بس هو يقرأ عليها وسكتة معنى نكن يسقوا حوجدي هذو أضون إلهي وياهي أقل قيس حماد الله قوم السمايين وانين لحربان هاي سوماها حربان هاي تاسو يسقوا مركا وجدي دوش وكارك وصور أدعي بواب كيف ويمد النكي واش مانك الباب وجوجي أو أضيق الدقي وتجي محات كنت محو كايري لبدا سؤالات بيوديو كوري نك أقل قيس الله قوم عياريو وحربان سواء أضون ده محات كنت جوابتي مركز ده وحنا يا سيدي سيد ويا نكن وانا حر مركز والله حر ما يهيبوا الضون بان هيبوا الضون عقاق بوكا قصر على عقل كيس دوش سري الباب كجيد كايو تاغن يسقو عقاقا وكتب دقاقين نكي عقل كيس كوما سو نقون بلدي عقاقي وعقاقنا اي الله مقع دري بشر الحافي بشر كي عقاقنا مساجد كو قلي فتاب توبة نصوحا حلقات العلم يجيبوا كحرمي علماء الربانيين تيبوا الله فريستي تارة في الذكر وتارة في التلاوة وتارة في العلم وتارة في العلم الحديث مركز دموه نغضي ولي من أولياء الله بنغضي بشر بن الحارث الحافي قال المعلمها كمذا يسقنا وحو صومري ملقى الشنة أيو أركي لفظا اسم الجلالة الله warqaday ku qoran tahay meel qashina dhexta labo arkay oo ka soo qaaday lacag yar oo diraahim yar uu sitay u lahaa magaalada tago cunto kaga soo gado maadaama uu yahay talib ilm uu gaajoonaya ayuu yiri magaci ilaahay buu arko qashin dhex yaala oo ka soo qaaday lacagtii intuu la tagay dukaanka cadar laha ayuu cadar intuu ku soo iibiyay qiimo badan oo qaaliya ayuu warqadii magaca ilaahay ku qornaa buu ku shugay cadarkii udgoon buu ka dhigay udug markaasuu masjidka meel fiican buu ka dhigay warqadii gaajana uu ku saxday habeenkii waa warqad habeenkii markuu seexdaa manaam lagu yidhi sidaad magacayga u udgoonaysiisay ayaan adigana magacaaga kor u qadnaa ilaahay ilaa qiyaamaha warqad magacii ilaahay ku qornaa ayuu dhaafi waayey uu lacagtii uu raashinka uu lahaa ku gadatidna uu u huray uu ku soo udgoonayo cadar ugu soo gaday imisa dad muslimiina oo islaamnimada ku dhalatay oo qulubtooda ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah muhammadur rasuulullah
oo si walba gaaladu ay yeelan inay gaaleeyaan oo la gaaleey waayay ayaa dayacan maanta ayaa se ka soo dhex qaaday u fikiraya intaynan masaajidka soo gashay camaraysa intii khayrka jeclayd baan nahay naku raaqibiintii baan nahay khayrka jeclayd culimada ku xidhnayd laakiin inta aanan maanta khayrka jeclayn ee maqaaxiyaha fadhida ama meelaha fisqiga lagu sameeyo ku sugan ama qaflaysan ayaa boqolkii 80 iyo kay naga badan maanta nicmada hadday haystaan ilaahay ugu shukrini maayaan way kufrinayaan balaayo haddii la soo daristana ilaahay u sabri maayaan oo sabri maayaane way quusanayaan cid markaa waxaa loo baahan yahay dadka maanta gacanta soo qabata islaam baa wax u wada ilmo yaroo keliya lahayd laakiin ilmahaasi caqligu ka jiran yahay caqliga bal weliba hooyadii habeen u tumaa ilaa caqligu wax ka qabaaye markaas iga qabtay tiraahdaa dadna markaa bajaarku u soo gurmadaan oo way ka qabataa baa waa laga qabtaa maalin maalmaha ka mida ilmihii sidaas ahaa ee dhibta iyada ku hayay ayaa ka lumoo ka halaabay baa la yidhi hal looga wataamaysaa soo maha waa ka lumay de macnuhu markaas alla ilmahaygii way wiilkaygii dadkii baa ku yidhi maxaad ka raadinaysaa kan maxaad ka raadinaysaa uu ku dhibayo dhibna uu kugu haye iska daha kaa maqnaadee way macidaan isaga ahayn oo kalan leehay bay tiri bal fiirso sida hooyada ilmaheega ugu naxariisanayso ayuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadiisa ugu naxariis badnaa magaalada maka maalinkii markuu mara nebigu kuwan la hadlo faminhum man tafala calaa wajhihi wejigiisa qadhuufta nebiga lagaga tufaayey wa minhum man sabahu qaar way aflagaadaynayeen nebigeena way caayayeen oo afkay ku taagayeen wa minhum man darabahu qaarkood way garaacayeen nebiga sal alla alay wasalam wa minhum man xaha turaaba calaa wajhihi qaar carada intay qaadaan bay nebiga ku sheedhinayeen waa maalinkii gabalku habeenka markuu dhacana wuxuu lahaa yaa rabbi ummatii yaa rabbi ummatii yaa jibriil u tag xabiibkayga moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uka yaa muxamed ummadaada annagaa kaa raalli gelini doona kuguna dhibi mayna baa ilaahay ku yidhi waxaad raalli adigu aad ku noqotaan ummadaada u yeeli doonaa baa ilaahay yidhi wax adiga ku dhibana ummadaada ku samayni mayne isqabooji baa nebiga lagu yidhi markaasuu nebigu lahaa yaa jibriil ummatii yaa jibriil ummadayda ma lahayn inantaydii faatimo iyo zawjadaydii caaisha iyo zawjadaydii khadiijo iyo may ummatii innakana dareenkaadi allah inagu arsaaqo xil baa diinta inaga saaran halkii nebi maxamed sal alla alay slam inakaa ku jirna booskiisii maanta booskii nebiga ayaa ku jira waa inuu qof kastoo muslima u yidhaahdaa booskii nebiga anaa ummadda ugu jira maanta uuna dardaarmay nebigeennu xajat alwidaac wuxuu hi ani nebi igama dambeeyo inagana ummad inagama dambayse ka shaahidka xaadirka ka maqan gaadhsiiye saasee markaa diintan inagu soo gaadhay insha allah dhahada inakuna inaan halkaa dadaalka diinta ka sii wadno oo haddii laynaga dalba diinta inaan waktigeenna ku bixino insha allah dhahda soo diyaar ma nihin insha allah soo diyaar garooba insha allah allahna inagu anfaco saad noo soo dhaweyseenna dee allah ininkana idin soo dhaweeyo masaajidkuna waa masaajidkeennii ininkuna dadkaygii ehelkaygun baad noo tihiin waani soo buuqanay kulankii baan kasoo qayb galnay ijtimaaca si fiican buu u dhacay runtii dee waa mandiqadeenanu baa ijtimaacay maanta adduunyada ka dhacan ogaada jabuuti iyo hargeysa iyo muqdisho iyo nairobi dadkeenan afkeenan soomaaliga ku hadla ee mandiqadan ku nool wax weyn baa ilaahay nala doonay maanta wax weyn baa ilaahay na siiyey saxwada iyo dhaqdhaqaaqa iyo kulanka iyo culummada iyo masaajida iyo madaarista iyo macaahidda iyo culummada meel walba si xore diinta ilaahay u sheegaysa manbacii qur-aanku ku soo degay manbaculwaxyi xorriyaddaa maanta aan ku haysano wallahi kuma haystaan culimmadii mamlakadu maanta marka innakana nicmadda allah inoo ilaaliyo iyakana amniga allah u soo celiyo
حرية دين تودن إياكن الله وسوع عليه أمني إيمان كان الله إنه زيادية دين تضاعد الله إنه معانيه ضد بدنا ولا لهنا دعاء دونه قارا حنوسي هنا نوال بالكو كبو كان عافما سريع الله كصيو قفل بالكو كربيسان كرباد الله كقادو قفل المراد يسوع مع سلهنا قعنت مديق الله كصيو أمني إيمان كان الله إنه زيادية ضدك وضن كان إسلام كأنا هنا قال دانا وضد بعسن وجلع سنة إياكن إلهي هداية الله وفيسلي إلهي قلوب تودها سوجيديو كوي سبب تود أمد وأيكوها نون سنة إنك الله نجيله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد